اللهم صل على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لما أنت وين سلام يا قدد حلورجنتي وسعرتك تمد أقسمياش عليه waxaan kala salaamayaa gudoomiye ku xigeenka waxaan salaamayaa gudoomiye hore JK Ismaan Ege waxaan kala salaamayaa bahda waxbarashada dhamaanteed waxaan kala salaamayaa xildhibaanada waxaan salaamayaa dhammaan bulshaweyntii intii la magacaabay la soo hadlaysay maalintii la magacaabay ilaa imika bulshadii gobolka Awdal dhammaan way la soo xiriirayeen waa la soo dhaweynayay in badan baa ugu timid Hargeysa oo si wanaagsan oo qiimo badan ii soo dhaweynaysay dhamaantii waan iga mahadnaqayaa waxaan kala mahadnaqayaa team iiga yimid Hargeysa oo safarka u soo galay team kale oo Burcay iiga yimid baa jira oo ayaguna jira dhamaantii waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaan u mahadnaqayaa in Allah subhanahu wa ta'ala inagu kulansiiyay madashan aadka u quruxda badan waxaan kala mahadnaqayaa wasiirka Ahmed Maxamed Diiriye Torno oo igmaday inaan wakiil uga noqdo gudoonka waxbarashada ee gobolka Awdal waxaan kale oo u mahadnaqayaa gudoomiye hore JK Ismaan Ege oo isaguna maalintii la magacaabay wiila soo xiriiray inta xiriir baa naga dhaxeeyay Hargeysa waan isku aragnay sheeko badan baan yeelanay isagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale oo aad u mahadcelinayaa gudoomiye ku xigeenka Aadan Faarax Maxamuud oo isaguna Hargeysa aan isku aragnay xalay soo dhaweynteedii ilaa 12 habeenimo ayaan soo galay inta dhaxanta u fadhiyay isagana aad baan u salaamayaa oo baan kugu mahadcelinayaa gudoomiye mahadsan tahay waxaan kale oo mahadcelinayaa shaqaalaha gobolka oo run ahaantii in badan ay yimaadeen in wajigooda waan arkay in maan arag dhamaantiin waan mahadcelinayaa waxaan kale oo mahadsantiin dhamaantiin waxaan kale oo mahadcelinayaa dhalinyar fara badan oo xalay soo dhaweynteedii ka soo qayb qaadatay iyaguna mahadsan yihiin bulshada dhamaantiin waan salaamayaa insha Allah waxay u badnaan doontaa maadaama hadalkii gaaban yahay inaan mahadnaq aan ku soo gabagabeeyo waxaan in yar gudoomiye hore wax badan buu qabtay insha Allah waxa balanteedu noqonaysaa tayadii waxbarashada way aad buu wanaagsan tahay waxana ay ku calaamadsan tahay waa marka Soomaaliya xasuustaba gobolka waxa waa gobolkii waxbarashada marka insha Allah intii hore wixii qabyaan inaan insha Allah tayadii aan ku dadaalno oo balin noo noqoto inaan tayadii aan si wanaajino mooyaane inaan halkeegii hoos uga dhicin taasi waxay ku imanaysaa laba bay ku imanaysaa waa ta koobaad waxa weeyaan wada shaqaynteena anigu waxaan qaban karayaa ma jiro hal shakhsi baan ahay laakiin haddii shaqaalaha dhamaantood ay si wanaagsan la shaqeeyaan gacmaha is qabsano taasi waa faktorka koobaad ee aynu insha Allah tayada ku gaari doono talabaadna waa sinaan iyo cadaalad waxaan xagan ballan ka qaadayaa ilaahay hortiina uga qaadayaa in dhammaan waxbarashada bahdeeda barafad haday noqoto haday dawli noqoto iyo shaqaalahaba in insha Allah aan ku dhaqi doono cadaalad iyo sinaan aanan cidna kala soo dhageysan doonin marka insha Allah waxaanu garanaynaa mas'uuliyadda culeyskeegan garanaynaa ilaahay wuxuu in aradna al-amaanata ala samaawaati wal ardi fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha marka mas'uuliyaddan la saaray mas'uuliyad aad runtii culus Allah waxaan ka baryayaa idinkana inaga codsanayaa inaad Allah igu baridiin in uu mas'uuliyadda culus ilaahay u fududeeyo nabiguna wuxuu yiri kullukum raaci wa kullukum mas'uulun عن رعيتي marka insha Allah mas'uuliyad bayna wada saaran mas'uuliyadda ugu badan gobolkaanay saaran tahay dhamaantii shaqaalaha kale waxa saaran mas'uuliyad baa saaran anigoo dhamaantiin kala qaadin aad baad u mahadsantihiin anigu waxaan insha Allah maadaama aan cusubahay waxay noqon doontaa mahadnaqa iyo inaad ii ducaysiin hambalyada marka dambe laakiin imko duco weeyaan insha Allah marka inaad ducaysiin oo aan si wanaagsan wada shaqeyno dhamaan bahda waxbarashada